mid baa intuu yimid ku yidhi macallin wanaagsanow maxaa wanaagsan oo aan sameeyaa inaan nolosha weligeed helo wuxuu ku yidhi maxaad wax iiga weydiinaysaa wanaagga waxaa jira mid wanaagsan haddaad doonaysid inaad nolosha geshid qaynuunada dhowr wuxuu ku yidhi ciise ayaa ku yidhi waa inaanad udgoyn waa inaanad dinaysan waa inaanad waxhabin waa inaanad marag been ah furin aabbaha iyo hooyada maamuus oo waa inaad deriskaaga u jeclaataa sidaad naftaada u jeceshahay ninkii dhallinyarada ahaa ayaa ku yidhi kuwaasoo dhan ayaan dhowray maxaa weli ii dhiman ciise ayaa ku yidhi haddaad doonaysid inaad samaatid tag oo iidi waxaad haysatid oo masaakiinta sii oo waxaad jannada ku lahaan doontaa maal ee kaalay oo isoo raac ninkii dhallinyarada ahaa goortuu hadalkaas maqlay ayuu baxay isagoo calool xun waayo wuxuu ahaa mid waxyaalo badan leh markaasaa ciise wuxuu hertiisii ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay nin hodan ah inuu boqortooyada jannada galo waa ku adag tahay haddana waxaan idinku leeyahay nin hodan ah inuu boqortooyada ilaah galo waxaa ka howl yar in awr irbad daloolkeed ka tuso xertii goortay maqleen aad bay u yaabeen oo waxay ku yidhaahdeen dadawayaal baadi kara ciise intuu eegay ayuu ku yidhi waxaanu uma suurtoobeen dadka laakiin wax waluba waa u suurtoobeen ilaah markaas butros ayaa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi annagu wax walba waannu ka soo wada tegnay waana ku raacnay maxaannu haddaba heli doonnaa ciise ayaa ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay kuwiina isoo raacay wakhtiga cusboonaysiinta goortii wiilka aadanahu carshiga ammaantiisa ku fadhiisto idinkuna waxaad ku fadhiisan doontaan 12 carshi idinkoo xukumaya 12 qolo oo Israa'iil oo mid walba oo ka tegay iyo ama walaalo ama aabe ama hooyo ama caruur ama beero magacayga aawadis wuxuu heli doonaa 100 laab oo wuxuu dhaxli doonaa nolosha weligeeda kuwa badan oo hore waa dambayn doonaan kuwa dambena waa horayn doonaan